markaad eegto dowladdu waxay ku dhawaaqday gaar ahaan guddiga doorashooyinka magaalooyinka nabadda ah ee maamul goboleedyada in doorashada qof iyo cod laga qaban doono ma kula muuqanaysaa marka suuragalnimada arrinka maxamed horta maamulada dowladaha xubnaha ka federaalku intee la eg bay controlaan sidoodaba ama ay xukumaan waa su'aal la isweydiin karo shacabka federaalka iyada hoos yimaada hadda ay xukunto intee bay la egyihiin marka loo barbardhigo inta gacantooda ka maqan ama ha uga maqnaadaan dowladaha xubnaha ka ah oo aan hadda xiriir siyaasadeed ayaan lahayn oo ay wadaagin arrimahan doorashooyinka ah ama ha uga maqnaadaan xarakooyinkan kale ee ay cadowga yihiin inta ay dowladda federaalka ah ama inta taageersanay ay hoos yimaadaanse tir ahaan intee bay ka leegyihiin ummadda isla markaasa sidee bay amni u yihiin oo ay u suurageli kartaa doorashada in la qabto waa su'aalo muhiim ah oo la isweydiin karo ka hor intaan tallaabo la qaadin ma kaga wanaagsan tahay horta intaa la qiimeeyo mase ku wanaagsan tahay marka hore sharciyan in la qiimeeyo logically hab siyaasadeedka Soomaaliya dowladda federaalku intee in la eg ayay leedahay iyadoo inay resource ku bixiso maanta inay doorashooyin qabato marka loo barbardhigo inay xaqiijiso waxyaabaha constitutionally dasturiyan iyada ay u igman tahay oo caalamiyan iyo guud ahaanba lagu dhaliilayo inay ka gaabsatay ama ay ku fashilantay waxyaabaha ugu weyn oo maanta ummadda Soomaaliyeed doorashada marka loo barbardhigo looga baahida qabo waxay tahay in xididada loo siibo musuqmaasuqa dalka ragaadiyay oo doorashada laftigeeda xataa aan loo aamini karayn muwaadinka Soomaaliga ahi codkiisa yuu ku aamini karaa ilaa codku waa ammaanaya in si sax loogu tirinayo wixii uu rabayna uu ku goosan karo marka uu ammaanadii asaasiga ahayd uu leeyahay iskuulo iyo isbitaallo iyo amni ciidan amni oo amniga u suga maxkamado iyo nidaam maaragtay cadaalad ah ilaahay kuma samadiideen noloshii asaasiga ee basiga ahayd uusan ka haysan xukuumadii uu ugu igmaday maxay u samaynaysaa in qof bedelo logically kaba soo qaad in madaxweyne bedelo oo codkooda uu ku bedelo hadiiba asaasiyan ba ayan hayn marka u horeysa wixii salkii ay ku fariisan lahaayeen anigu waxaan arkaa taas waa marka prioritiska laga hadlayo laakiin marka dhinaca kale laga hadlayo waxaad moodaa arrimahaas iyaga ahay markaad sidaa u eegto in humaag ciyaamaha uu kaa gelayo suurtagalnimada ah inay hirgalaan doorashooyin maanta dowladda federaalku ay horboodayso iyo legality wada sharciyadooda iyo amaanadooda inta laakiin shortayo maxaa diidaya tusaale maamul goboleedka hadda Hirshabelle oo kale magaalooyinka dowladdu ay joogto gacanta lagu hayo doorashada laga qabto galmudug sida ay silamada laga qabto koonfur galbeed laga qabto magaalada muqdisho maxaa diidi karaa islaada hadda dalku ma inta kaliya inta ila egbaysa populationka Soomaaliyeed ay intaasi ka la eg tahay marka maxaa dastuurka ku qoran marka laga hadlayo doorasho in la qabto qaabkee baa doorashooyinka loo qabanayaa codka sidee loo tirinayaa qofku cod intee la eg madaxweyne ku noqon karaa oo ummadda Soomaaliyeed uu ku mithali karaa ama uu xildhibaan ku noqon karaa ummadda Soomaaliyeed uu ku mithali karaa questions badan oo xagga logiga ah iyo xagga sharciga ah ayaa soo baxaya tan kale hortebin ma u tahay mudnaanse ma u ahaan ka dhaamase u tahay dowladda federaalka doorashooyin maanta marka loo barbardhigo waxyaabaha kale inoo kala qalan maxaa diidaya marka guddiga doorashooyinka tusaale ahaan waxay xuseen in 55 sano ka hor ay ugu dambeysay doorasho in laga qabto dalka Soomaaliya oo markii horreysay ay noqon doonto 6 bilood kadib marka iyagu doorashada ay qaban doonaan Puntland miyaanay Soomaaliya ka mid ahayn oo aanay ahayn meelihii 55 sano ka hor doorashooyinka laga qabtay kadibna hadda doorashooyinka la soo celiyay halka marka waxay muujinaysaa laftigeedu intentions kale oo dawladdu ay leedahay oo xukuumadda hadda federaalku oo aan ahayn kuwa sax ah ama lagaba shakiyi karaba haddii kuwaasi marka hore ay approve gareyn hadeerna ay kaba soo horjeedo sharciyada marka laftigeeda yaa horta xaq u leh doorashooyinka inuu qabto xageesa doorashooyinka laga qabanaya ayaa marka horeba iyada laftigeeda la isku qabsan karaa haddii kutubta la isu soo gurto waxyaabo badan oo noocaas baa jira tan kale waxay tahay xukuumadda hadda federaalka kale marka laga hadlayo oo dhinaca amniga mar kale haddii aan ku celiyo iyadoo ciidan ajnabi ah waxa ugu badan oo la makaansanayo lama kabsanaya ay yihiin
isla markaasna amnigii weli siday ahayd loo sugi kari lahayd xamar siday u kala xirxiran tahay oo magaaladii amniga caasimadana ahayd oo xukuumadana fadhiga u ahayd aad arkayso sida ay tahay dhexdeeda aan laga socon karin xagee baad isleedahay sidee baase la isu oran karaa doorasho smooth ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa dhici karta marka muwaadinka muqdisho jooga uusan baxor u ahayn xataa magaaladiisa meeshuu doono inuu si free ama xora ugu gaaro arrimahaasi waa waxaad moodaa lugtii jeeniga dhaaftay inay tahay arrintaa iyada marka waxaan isleeyahay dana anigu shakhsiyan waa aragtida shakhsiga ah dano baad moodaa kale sabab keenaysa in hadda la soo hormariyo oo waxaan mudnaanta koowaad maanta ku jirin in miiska hore la soo saaro inay dan gaara leedahay aanay ahayn wixii mudnaanta u ahaa ummadda Soomaaliyeed in doorashooyinka lagu qabto habkii odayaashu ay ku qabanayeen dhuumaalaysiga ahaa ee qofka codkiisa uusan ku cilbixin in weli la joogo maya waxay ahayd in doorashadan habkan hadda dawladdu qaabkan riya maalmeedka ahayd in laga dhigo riya dhab ah oo inta loo yeero cidda ay khusayso meelihii laga qaban karay dadkii ay ka wada dhexayso stakeholderska ahaa ciddii ina ku saboorti garayn lahayd cidda khibradda u sii leh ilaa waa leenahay khibraddii laftigeedii oo waddanka waa lagu kala horreeyey doorasho laftigeeda in la qabtee ba hal loo dhan yahay innagoo Soomaaliya oo u wada dhan inaanu niraahno galaaska cusbada aan laqabo doorashadaasna horey aan u socodsiino qaabkii iyo caqligana la ballaariyo aan lagu koobin xukuumadda federaalka oo keliya iyo miisaskeeda intaa keliya laakiin maalin walba haddii siyaasiyiintu ay dhahaan doorasho qof iyo codal lama qaban karo micnaheedu waxay tahay dalka inuusan u dhaqaaqin in hore u socdo soo ma waxaad moodaa inaanay maalin walbaba ahayn inay ahayd in meel la rabay in lagu mido ciddii codayn lahayd baan hadda maanta kuba wada socodba hadda Jubbaland haddaanay codayn oo Puntland aanay codayn oo meelo badan oo dalka ka mid ah ammaan darro looga codayn waayo marka soo micnaheedu ma aha bahashan yar napkinka ah ee afka lagu dirtay xaashidan faynka Soomaaliya gudaheeda looga yaqaan oo la kala jiitay oo qolba meel la aaday soo noqon mayso doorashadina soo sidaas oo kala noqon mayso marka waxay naga noqonaysaa marka daan dabagaalle waxay noqonaysaa doorasho la carshaasheeyay oo hadhow marka si sax loo qaban kari doono ay dhibaato keento dadku inuuba aamino maanta haddii la carshaasheeyo oo ay noqoto kaar group gaar ah gruubadan siyaasadda isku hardinaya ama siyaasadda ku loolamaya ama danaha gaarka ah kale midba uu maalintiisa marsado tii hadda Puntland baan cawaaqibkeedii waxaan isleenahay talowma positive bay ahayd mise negative bay ahayd Soomaalise maxay soo kordhinaysaa oo tusaale fiican iyo cashar fiican la u tahay iyadii baanu weli loo foldhaqaya oo la hagaajinaya marka tan federaalku hadda haday maanta noo raacdo waxay noqonaysaa in xamar baan beri waxaa ka jiray shareecada in wax lagu maaragtay lagu dhaqo oo ma garanaysaa si wax la bilaabay oo dee wixii ay dhashay waad garanaysaa raggii maanta xilligaas ama lugaha la gooyey ama gacmaha la gooyey ama lagu bedilay dabadeedna cadaalad darro badan ay ka dambeysay xaaladeedii maxay noqotay maanta waa sababta keenaysa maanta xataa xarakooyinka qaarkood oo leh shareecada aan wax ku xukunno in iyagii laftigoodii la aamini kari layaa marka berri amayba keentaa in doorashada la isku aamini waayo marka laakiin markaan fiirino waxay ku fiicnaan lahayd si miyir leh iyadoo aan la diidin wixii hore aan kusoo jirnay 4.5kii wixii khabiif ka ahaa in la bedelo waa biyo kama dhibcaan waana muhiim laakiin waxay tahay in loo bedelo si sal mugale loo dhan yahay comprehensive ah lagu midaysan yahay in Soomaali oo dhan dhinac walba in shacabka looga tumayo oo state walba oo ka tirsan in xukuumadda federaalka inay waxeeda qayb ka ahaato dhulkeedana ay ugu walxarisay u qaban lahayd kuwa ay ku adag tahay oo xagga amniga ahna xataa inta ciidamada federaalku wada leeyahay inta loo qaado in lagu sugo amnigooda oo doorashooyinkooda lagu socodsiiyo halkaa weeye meesha sida saxa ahi intentionka wanaagsan ama ujeedada wanaagsan doorasho laga leeyahay ay ku qabsoobi kartay laakiin markaan fiirino labada kun ka soo bilow doorashadii carta ilaa hadda hadba marxalad ayay soo mareysay marba waxbaa laga bedelayay maanta haddii Puntland iyo maqan yihiin Jubbaland markaan eegno maqnaanshaha hadda tiro badan oo la dhihi kara ma jirto in laga maarmo oo dadkii ka soo jeeday deegaanada kale ku sugan ay codeeyaan laftirkeeda maxay dhibaysaa qaabkan laga guuro su'aasha la isweydiin karaa waxay tahay reer Puntland oo dooran kara madaxweynahoodii haddii ka aamin baxsanaan ay ka aamin baxsan yihiin maamulida doorasho ee dowladda federaalka ay iyagu ay u suurtay gelin inay madaxweynahoodii gacantooda ku doortaan madaxweynaha dilla Soomaaliya fadhiya
xidigta cad iyo cirka buluuga ah ku dhex jiraay oo u malaynaysaa marka inuu xukumi karo oo uu goyn karo masiirka ummadda reer Puntland ama Jubbaland oo kale tusaale ahaan dhanka soo qaada ama qayb ka mid ah Soomaaliya ka maqan baashani waxay ku wanaagsan tahay hadee dadka ku metelaya kuweyhi dadka ku metelaya kuweyhi yaa ku metelaya mideen soo dooran baa ku metelaysa hadda waxay noqon kartaa marka qof intuu khasab isu doorto inuu yiraahdo idinkood ana idin metela marka madaxweynuhu wuxuu noqonayaa qof khasab isu doortay oo kaliya isagu cidda aan metelin laakiin ana idin metela xildhibaanku wuxuu noqonayaa nin khasab isku doortay si musuqmaasuq isugu badan lagu doortay oo isla ana metela cid isu metelin dab ahaantii leh ana ku metela wasiirku wuxuu noqonayaa ciidan cidda metelina group yar oo junta oo sidii maafiya u samaysan baa dawladii oo dhan isu bedelaysaa marka waxyaabaha laga walwalayo waa arrimahaas oo kale marka barnaamijka ayaa leen ka cashaashay waa aragnaa inuu socon karin waa loo jeedaa waxa dhacaya hadda laftigeeda xamar ifafaalaha sanadkii hirigirigta hadda already la galay waa arkaysaan qoryo gurasho iyo qayla dhanba already bilaabatay iyo ma garanaysaa ay xubnaha kama qaadi karo iyo kuma darsan karin iyo marna waxa bilaabanaysaa xasan oo villada ka soo bax marka inta arrimahaasu ay sanad walba madaxweyne la doortay si la doortaba lagu doortay isagoo daayeer aan meesha laga ridin waxay ku wanaagsan sanaan lahayd in waxaynu isla ogol lahay inaynu raan aqligu inoo shaqeeyo wax kan hore inuu soo daalnay filmaanta dhowr jeer hore inuu soo galay waa soo aragnay wax inoo shaqeyn waaye in tii Puntland oo hadda anagu aanu galnay halka ku galnay baanu aragnaa qiimaha ay leedahay iyo caqabadaha ciladaha ay lahayd iyadoo waliba dhulku amni yahay oo ilaahay kuma samadiide ceebo badan leh de koonfurta Soomaaliya oo xaaladeeda iyaduna aynu ognahay de wani sunaana waa dalka yagi wax aan admoodo inayan aan lagu halayn karin madaxweyne 5 sano soo socota Soomaaliya masiirkeeda goyn kara iyo baarlaman 5 sano soo socota masiirka ummadda Soomaaliyeed goyn kara hadaan la rabin wixii hore wax ka sii liita inaanu qaadano aan tii hore meel ka sii xun aan ku bedelano aan wax ka fiican aan ku bedelan hadii la doonayo taas waa wax kale marka una malaynay taas in hadda Soomaaliya ay doonayso ama cidina ay doonayso aad baad u maasantahay shorta waxaan isleeyahay aasha loo dhamaadaan qaba aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa maxamed IBS Bank waxa uu ku hayaa kaarar caalami ah oo aad kala bixi kartid lacagtaada adduunka meel kasta oo aad tagto waana bangiga kaliya ee bixiya adeega Visa Card guud ahaan dalka noocyada Mastercard ee ka helaysa IBS waxa kamid ah Classic Mastercard iyo Well Elite Mastercard noocyada Visa Card ee aad ka helaysa IBS na waxa kamid ah Classic Visa Card iyo Infinite Visa Card